ابن الجوزي ابن النحاس قصة يسوري إن شاء الله تعالى سوق هذا دورنا مركز قصينا إن شاء الله تعالى بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة يضع وحاسورين يا ابن الجوزي كتاب كيسا صفة الصفوة، ابن النحاسنا كتاب كيسا مشارع الأشواق. وحكسورين يا رجل صالح أو وناكسن مقعيسا لو يقاني أبو قدامة الشامي، أبو قدامة الشامي وتعالى إنه هذه الجار كجرو ما مقلى يمال دولان كدعيو قال له دوليو مرة مقليو دقال المسلمين تي قال له أدحيو حدوبا مقلو وأدك دقال كايساقا سيو مسلمين تولا صفتو قال له قسو هرجيستو مربوحو فريستي حرم كمدينة، مربوحو فريستي حرم كمدينة مسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم. نبا وحو يورنيه وحن كويدين يا ما ii sheegi kartaa buu yiri wixii kuugu yaabadnaa ee aad soo aragtay, ma ii sheegi kartaa wixii kuugu yaabadnaa ee aad aragtay inta aad jihaadka iyo ku soo jirtay jidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dagaalkiisa, ma ii sheegi kartaa wixii kuugu yaabadnaa ee aad aragtay. wuxuu yiri Abu Qudama wuxuu ku yiri waxa tahay nin jihaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala la jeclaysiiyay dagaal inuu jidka Ilaahay u raacana waxyaabaha cajaa'ibka kugu darnaa ee umuraha jihaadka ku saabsan ee aragtay noo sheeg. Abu Qudama wuxuu yiri waxaan idinkaga sheegayaa arimo dhowr ah. kow wuxuu yiri mar baan waxaan raacay rag asxaabtayda ah si aan ula soo dagaalno dadka saliibiyiinta ama kirishtaanka ah. meel dhufays annaga inoo ahayd ayaan u soconay. intaan wadada sii soconay waxaan sii marnay magaalo loo yaqaan Madiinatu Riqa oo Ciraaq ku taala wadiga Furaad dhinaciisa ku taala. halkaas ayaan waxaan ka iibsaday buuri awr ayaan ka iibsaday aan ku qaato hubkayga. dadkii deegaanka riqada gana ayaan waaniyay, masaajideedii baan ka istaagay, waxaan ku dhiirigeliyay jihaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay soo baxaan ayaan ku dhiirigeliyay. qofkii aan bixi karin jidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu bixiyo hanti bixiyo si qof baxa loo helo. dadkii markaan waaniyay waxbay soo ururiyeen buuri, dadka qaarna way isdiyaariyeen. habeenkii markii la gaaray ee cadceedu ay dhacday ee dadku qof walba uu gogashiisa iyo gurigiisa ku hoyday, wuxuu leeyahay guri baan kireystay anigana si aan bal habeenka maadaama aan magaalada joogo u seexdo. habeenkan qayb kamida markii ay tagtay oo dadku saantu ay degtay ay kala nasteen ayaa waxaan maqlay albaabkayga oo la garaacayo. markaan albaabkii furay waxaan arkay haweeney dhowrsoon isa soo duuduubtay jilbaabka aad isugu soo xirtay. waxaan ku iri maxaa doonaysaa? waxay igu tiri Abu Qudama ma adiga? waxaan ku iri haa waa aniga Abu Qudama. waxay tiri ma adiga ninkii maanta hantida loo ururinayay jidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo muslimiinta dhufayska ku jira ninka u socda ma adiga? waxaan ku iri haa. waxay ii dhiibtay buu iri maro oo la soo xirxiray sida xargaha camal loo soo sahay bay ii dhiibtay ayadoo ooyeysa ayay iga tagtay. waan eegay buu yiri maradii waxa ku jiro qoraal yar oo uu ku jiro oo ku qoran yahay. wuxuu yiri waxay tiri walaxaad noogu yeertay jihaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaad noogu yeertay, anigana ma awoodi karo inaan jihaadka Ilaahay ku raaco. waxaan soo gooyay bay leedahay wixii igu wanaagsanaa ee aan haayay ee mara ah ayaan soo gooyay. dharkii gurigeeda yaalay bay soo jartay, waan soo solay bay tiri sida xargaha ayaan u soo solay si aad faraskaaga xarig uga dhigato. anigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala marada ayada aan soo googooyay ee aan soo solay timahayga qayb kamidana aan ku soo solay ee adna aad faraska xarig kaga dhiganayso jidka Ilaahay dartiisa Ilaahay anna uu igu dambi dhaafo. Abu Qudama wuxuu yiri waan la yaabay gabadha waxa ay soo qortay waan la yaabay siday ugu dadaalayso jidka Ilaahay iyo jihaadka siday u jeceshahay iyo sida ay hilowga ugu qabto dambi dhaafka iyo jannada Ilaahay baan la yaabay. waaga markuu bariyay ee aan waabariisanay aniga iyo dadkii ila socday waxaan ka tagnay magaalada Riqa ayaan ka baxnay. markaan gaarnay dhufays loo yaqaan dhufayskii Muslima ibn Abdul Malik ayaan waxaan arkay buu leeyahay dagaalyahan faras dul saaran oo soo qaylinaya gadaashanada ka soo qaylinaya dhahaya Abu Qudama
isug oo istaag ilaahay ha kuu naxariistee abu qudaama wuxuu yidhi raggii ila socday dagaalyahanada waxaan ku idhi iska sii socda aniga ayaa qofkan akhbaarta uu noo wada sugaye waan u laabtay gadaal baan ugu laabtay markaan u dhowaaday hadalkii isaga ayaa bilaabay wuxuu yidhi ilaahay baa mahad iskale allihii aan ii diidin inaan adiga kuu raaco jihaadka oo aan i celinin anigoo dullaystay oo ah inaan ku waayo waddo aad martay oo anna aan iska laabto ayaan ka baqayay waxaan ku idhi maxaad rabtaa wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan jihaadka kuu raaco waxaan ku idhi buu yidhi wejigaaga marada ka qaad wuu weji duubnaa wejiga marada ka qaad haddaad weyn tahayna qof weyn tahayna dagaalka uu kugu waajibo ku gaaray laasim kugu yahay xilligaagana waan ku aqbalayaa haddaad qof yar tahayna jihaadkuguma waajibe waan ku celinayaa wuxuu yidhi abu qudaama wejigii buu ka qaaday daboolka waxaad mooddaa buu yidhi dayax 14aada wejigiisa si u dhaldhalaalay u qurxoon yahay waa nin dhallinyaro oo da'diisa 17 sano ay jirto waxaan ku idhi wiilkayow aabba ma leedahay wuxuu igu yidhi aabbahay waxaa dilay saliibiyiinta hadda adigaad u socoto inaan la soo dirirta aad doonayso anigana waxaan u socdaa kuwii aabbahay dilay inaan la soo dagaalo aan dilo ama ay dilaan waxaan ku idhi buu yidhi hooyo ma leedahay wuxuu igu yidhi haa hooyaday way joogtaa waxaan idhi buu yidhi orod hooyadaa u laabo iyada si fiican ula noolow baari u noqo jannada aad raadinayso hooyadaa agteeda ayay taallaaye wuxuu igu yidhi abu qudaama hooyaday ma garanaysid miyaa waxaa idhi buu yidhi may wuxuu igu yidhi hooyaday waa islaantii kuu dhiibatay alaabta kuu dhiibtay oo ku tiri alaabtan ii hay wuxuu yidhi maxay ii dhiibtay islaanta alaabta ii dhiibtay maxay tahay wuxuu yidhi islaantii xargaha kuu soo sashay weeye xargahee baan idhi buu yidhi markaasuu yidhi ilaahay baa xumaan ka hufan oo durbaba ma hilmaamtay islaantii xalay habeenbarkii albaabka kugu soo garaacday ee maradii yareedoo xirxirneed iyo xargihii ku siisay baa ay dhashay waxaa idhi haa waan xusuustay wuxuu igu yidhi waa hooyaday ayadaa ay amartay inaan ku raaco jihaadka kuu raaco waxayna igu dhaarisay inaan dib u soo laabanin waxayna igu tiri hooyaday wiilkayow haddaad gaalada la kulanto dhabarka ha u jeedinin nafsadaada ilaahay u hibeey ilaahay inaad deris la noqoto muxuu ahaa aabbaha iyo abtiyaalkaana aad jannada deris kula noqoto raadi hadduu ilaahay shahaado ku siiyana aniga iigu shafaac maalinka qiyaamo xabadka ayay hooyada igu qabatay iguna soo ducaysay araggeedii bay sare u qaaday waxay tidhi ilaahayow ilaahaygii baa tahay sayidkaygii baa tahay mawlahaygii baa qisadayda udgoonkeeda waa midhaha qalbigayga adiga ayaan kuu dhiibay ilaahu waalidkiisii iyo abtiyaalkiisii sidaad shahaadada uga aqbashay ilaahu isna uga aqbal markaasuu wiilkii wuxuu yidhi abuu qudaamow ilaahay baan kugu dhaariyey inaan jidka ilaahay kuu raaco soo dagaalama ha ii diidin hadduu alla idmo waxaan noqon doonaa shahiidkii dhalay ina shahiid ayaan noqon doonaa ee kitaabka ilaahay waan xafidsanahay dagaalkana waan garanayaa iyo leebka sida loo rido da'deeda yar ha igu yasin hana ii celinin abuu qudaama wuxuu yidhi markaan maqla hadalkiisa ayaan idhi orodna keen bal soo bax waan tagnay buu yidhi waxaan aragnay nin dhallinyaraa oo dadaal badan inuu yahay haddaan faraska raacnana isaga ayaa inoogu fududoo naga horreeya fardaha eryiintiisa iyo kaxayntiisa haddaan dhulka degnana isaga ayaa inoogu firfircoon haddana wiilkaa isagaa xaaladdaa isagoo ku jiro wuxuu ahaa nin aan carabkiisa digriga ilaahay marna aanan ka daalin alla xusa ayuu ahaa waan degnay buu yidhi meel baan degnay waanna soonneen waxaan damacnay inaan afur samaysanno wiilkii yaraa wuxuu ku dhaartay isaga inuu afurka samaynayo waxaan ku nidhi maya isna wuxuu yidhi wallaahi aniga ayaa samaynayo waayahay baan nidhi wuu baxay afur samayntiibuu u baxay wuu inagu soo daahay dadkii baa igu yidhaahdeen afurkii waa la gaaray wiilkii yaraana wuu soo daahay ee maxaa ku dhacay abuu qudaama wiilka bal soo eeg waan baxay buu yidhi si aan u soo eego wiilkii wixii ku dhacay bal iyo meeshu ku mashquulsan yahay waxaan tegey buu yidhi isagoo dab intuu shiday dharigii raashiinka ku jira dul saaray kadibna indhihiisu ay ka qaalib noqdeen oo hurdo ay qabatay daalka dartii dhagax intuu madaxa saartay iska hurday baan ugu tegey waxaan kahday buu yidhi inaan hurdada ka toosiyo ayaan yarkii yaraa kahday waxaan kahday yarkii yaraa inaan hurdada ka toosiyo ayaan kahday waxaan isiri buu yidhi ha toosinin wiilkan yarkee bal adiga un wax samee wuxuu leeyahay waxaana ka baqay
dadkaygii saaxiibaday inaan u laabto anigoo gacmo maran waxaan bilaabay buu yidhi raashiinkii inaan aniga kariyo halkii wiilkii yaraa uu raashinka ka karinayay ayaan bilaabay in aan aniga raashinka kariyo wuxuu leeyahay marka wiilkii yaraa wuu ii dhowaa anigana raashin baan karinayaa xilli wiilkii yaraa uu hurdayo ayaan waxaan arkay buu yidhi wiilkii yaraa oo dhoola caddaynaya kii yaraa oo meesha agtayda hurdaya oo waxaan arkay dhoola caddayn bilaabay baan arkay haddana dhoola caddayntii baa sii ziyaaday waan la yaabay buu yidhi wuxuu bilaabay haddana inuu qoslayo qosol caadi ayuu bilaabay waan la yaabay wiilkii yaraa wuu hurdaaye maxaa marna dhoola caddada ka keenay marna qosolka maxaa ka keenay baan isiri kadib wiilkii intuu aad u qoslay ayuu hurdadii ka soo toosay markuu i arkay buu argagaxay wiilkii yaraa wuxuu yidhi adeer waan idinkala soo daahay raashinka waan ka xumahay anigaa raashinka dejinaya ee hagaajinaye qaadimkiina jihaadka idinla socda waa anigee iska tag orod waxaan ku idhi buu yidhi ilaah baan ku dhaartaye waxba nooma samaynaysid ilaa aad ii sheegto wixii aan kugu arka adigoo hurda adigoo samaynaya wixii kaa qosliyey ilaa aad iiga sheegto wallaahi wuxuu yidhi inaanan waxba kuu dirsanaynin odaygii hadduu markaa sidaa yeelayba wiilkii dhoola caddayntii iyo qosolkiina uu weydiiyey buu wiilkii yaraa wuxuu yidhi adeer waxaan arkay buu riye ayaan arkay buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi wiilkii yaraa riye ayaan arkay waxaan idhi ilaah baan kugu dhaariyey inoo sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi adeer iska daa aniga iyo ilaahay ha inoo dhaxayso wuxuu yidhi buu yidhi ilaah baan kugu dhaariyey ii sheeg baan haddana ku idhi markaas wuxuu igu yidhi adeer waxaan riyada ku arkay buu yidhi aniga oo jannada galay quruxdeedii iyo dhalaalkeedii dhex taagan sida ilaahay kitaabkiisa ugu sheegay nimcada la sheegay ku dhex jiro xilli aan jannada dhexdeeda dhex socdo oo la yaabayo quruxdeeda iyo siday u dhaldhalaalayso ayaan waxaan arkay buu leeyahay guri dhaldhalaalaya ayaan arkay birbirqaya iftiin iyo leerar ay ku dhegan yihiin dhoobada iyo derbiga uu ka samaysan yahayna qayb ka mida dahab ay tahay qayb ka midna qalin ay tahay daaqadaheedana ay ka samaysan yihiin xariir iyo mujawharaad iyo waxyaabo qurux badan oo dhalaalaya albaabkeedana dahab uu ka samaysan yahay daahiyaduna laga soo laalaadiyey daaqadaheeda waxaan arkaa buu yidhi gabdho yaryar oo dhallinyaro ah oo daaha daaqadaha furaya ayaan arkay wejiyadooda aad mooddo sida dayaxa dhaldhalaalaya markaan arkay quruxdooda aan arkay wuxuu leeyahay waxaan bilaabay inaan gabdhaha eego quruxdooda aan la yaabo waxaan arkay gabar aad u qurux badan gabar la arka dunida lagu arka tan ugu quruxda badan ka qurux badan ayaan arkay markaasay gacanta igu soo fiiqday kuwa kale ay tusinaysaa leedahay waa kan eega waa kan haweentii gabadhii laga raali noqday ninkeedii waatana zawjatulmardiya ninkeedii waa kana ayay ku celcelisay markaasaan waxaan ku idhi ma adigaa mardiyada ayaan idhi buu yidhi gabadha quruxda badan markaan la yaabay zawjadaydii mardiya ma adigaa markaasay igu tiri maya aniga waxaan ahay adeegtadiinna ayaan ahay adeegtada mardiyo u adeegaysa ayaan ahay ee mardiyo miyaad u baahan tahay orod qasrigaasi gurigaas isaga ah gal orod ilaahay ha kuu naxariistay hore u socaya igu tiri wuxuu leeyahay qasriga dushiisa ayaan waxaan ku arkay qol yar oo dahab ka samaysan dahab guduudan ka samaysan sariir ay ku jir tahay lugaha sariirta ay ku taagan tahay qalin uu ka samaysan yahay sariirta dusheeda waxaa fadhiya gabar wejigeeda aad muddo qoraxda ama cadceedda la kala dilaaciyey qayb ka mida in laga sameeyo aad mooddo hadduusan ilaahay subxaanahu wa tacaala araggayga sii hayn lahayn indhaha ayaan beeri lahaa buu leeyahay caqligaygana wuu tegi lahaa quruxda gabadha ay qabtay iyo qolkii aan dhaxtay oo quruxda aan arkay darteeda gabadha markay aragtay waxay igu tiri soo dhowow weligii ilaahayow kii alla uu jeclaadayow soo dhowow adiga ayaa ileh adigana aniga ayaa ku leh markaan hadalkeeda maqlay oo aan u dhowaaday waxaan ku sigtay buu leeyahay gacantayda in aan dusha jirkeeda aan saaro ama gacanteeda aan saaro ayaan ku sigtay markaasay waxay igu tiri kii nolosha ila wadaagi lahaayow kii aan jeclaayow ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaan ha kaa fogeeyo nolosha adduunyada qayb ka mida ayaa kuu hartay aniga adiga berrito salaada duhurka kadib ayaa inoo ballana markaa ayaan kulmi doonnaa markaasaan dhoola caddeeyey waana farxay buu yidhi adeer hadalkaa ay igu tiri inaan berri gabadhaa kulmayn ani ayada waxaan idhi buu yidhi ibnu qudaama waxaan ku idhi khayr baad aragtay in sha allahu tacaala
raashinkii baan qaadanay waan cunnay buu yidhi aniga iyo saaxiibadayda dhufayska ku jiray yarkiiba waan cunnay cadowga markii subaxii uu soo waabariistay taliyihii annaga ina wadayna ciidankii uu safay xilli aniga aan dadka eegay waxaan arkay buu yidhi dadka oo ilma abti iyo ilma adeero dhufaysada u gelayo si soo dhawaysan ayaan arkay wiilkii yaraa keliya ayaan meel gooni ku arkay qof soo qabsanaya ama soo dhawaysanaya ma laha waan baarbaaray waan raadiyey waxaan ku arkay safuufta hore dagaalka isagoo ku jiro keligii meel dhufays kaga jiro waxaan ku yidhi wiilkayow dagaalka aad ma u garanaysaa oo dagaal ma ka qayb gashay wuxuu yidhi adeer maya wallaahi waa dagaalkii ugu horreeyey gaala aan la galo ee aan ka qayb galo waa kan ayuu igu yidhi wiilkii yaraa wuxuu leeyahay markuu intaa wiilka ii sheegay ayaan waxaan ku idhi wiilkayow arrinta sidaad moodda ma ahan qalbigaaga sida aad ku malaynayso dagaalka ma aha wuxuu yidhi dagaalka arrinta taa way ka daran tahay waa dagaal waa dhiig waa rafaad waxa aad moodayso ood ku degdegaysa ma aha wax sahlan wiilkayow waxaan rabaa ciidanka gadaal askarta gadaal fadhida dhufays ku jirto ka mid noqo haddaan guulaysanana waxaad ka mid noqotay dadkii guulaystay baad ka mid noqotay haddaan guuldaraysanana dadka ugu horreeya dhimanaya ma noqonayn sidoo kuwa ugu dambeeya ayaad noqon doontaa wuu ila yaabay buu yidhi adeer ma adigaa hadalkaa idhahayo ayuu igu yidhi waxaa idhi haa aniga ayaa hadalkaa ku dhahay markaasuu adeer ma jeceshaha inaan naarta galo markaasuu igu yidhi acuudu billaahi naar miyaa halkan u nimid jihaadkaba waxaan u galnay cabsi naarta aan ka baqayno iyo raalli ahaansho ilaahay subxaanahu wa tacaala aan doonayno ayaaba jihaadka inagu kallifa inaan galnee ma naar baan u dulqaadan karnaa markaasuu igu yidhi wiilkii yaraa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا حداد لكم أنتان قالدي أو سوقر قورانيسا فلا تولوهم الأدبار هأجسي جيدنا دبرك ومن يولهم يومئذ دبره ننك دبرك أجيديا عرر إلا متحرفا لقتال نن دقال حل ديسانيا أو متحيزا إلى فئة قلق لي قلق لحق تاغن عيدا كسي بيري ننك سلا يلمويه وحي انتا كسوهرا فقد باء بغضب من الله عرى إلهي أي اللابتي ومأواه جهنم وبئس المصير نار بونا قليا من اللابتي نار باوحن مركو انتا آيات دا أخري وحو يرادر ma waxaad jeceshahay kuwa dhabarkooda jeediyey ee ahlu naarka inaan ka mid noqdo hadalkiisii ayaan la yaabay siduu aayadaha ilaahay u ilaalinaya ayaan la yaabay markaasaan waxaan ku iri wiilkayow aayadda aad soo daliishatay meeshaad u daliishatay ma aha wuu diiday buuri inuu booska ka baxo gacanta ayaan soo qabtay waan soo jiiday si aan uga soo saaro isna wuu diiday meeshii wuu isku celiyey anigana booska ayaan ka jiidayaa dagaalkii baa bilowday aniga asiga dhexdeena waa la galay cadow baa dhexdeena soo galay waan is arki weynay buuri wiilkii yaraa wuxuu leeyahay geesiyaashii baa isdalay waramadii baa la isku tuuray seefihii baa galka laga bixiyey madaxyo badan baa la guray gacmo badan baa go'ay lugo badan baa go'ay dagaalkii baa nagu adkaaday qof walba wuu isku mashquulay qof kale wuu xusuusan waayey nin walba saaxiibkiisii wuu hilmaamay wuxuu qof walba jeclaystay inuu isaga maanta ilaahay badbaadiye keliya ilaa salaadii duhur laga gaaray duhurkii markii la gaaray ilaahay wuxuu jebiyey cadowga saliibiyiinta ee weerarka aan isku ahayn buu ilaahay jebiyey markaan guulaysanay dadkii isla socday asxaabtanadii intii nooleed aan is uruursannay salaada duhurka aan dukannay kadib ayaa qof walba wuxuu bilaabay inuu raadiyo qofkii uu garanayay wiilkii yaraa wax raadiya ayaa la waayey ilaan qof weydiinaya ama garanaya ma uu jireen wuxuu leeyahay aniga ayaa baxay waxaan u baxay inaan wiilkii yaraa soo raadiyo xilli aan wiilkii raadinaya ayaan cod waxaan maqlay dadow fariin iigu dira abuu qudaama adeerkay abuu qudaama fariin iigu dira wiil dhahaya ayaan maqlay wuxuu leeyahay gadaal baan soo milicsaday meesha codka uu ka yeerayo waxaan arkay buu leeyahay kii yaraa warama dushiisa ay ku dhaceen waranba warankii ka horreeyay dushiisa uu ka taagan yahay farduhu ay ku istaageen hilibkiisii uu kala gogo'ay dhiiggiisii uu qulqulay lafihii ay kala jajabeen waa wiil yaroo miskiin ah meel saxaro iska yaala cid soo qaada aan lahayn waan dultegay buu leeyahay agtiisii baan ku dhacay oo hin baan la dhacay waan qayliyey abuu qudaama waa aniga ayaan ku idhi markaasuu yidhi ilaahaygii nolosha igu gaarsiiyey inaan kuu dardaarmo
ayaa mahad iskale dardaarankayga maqal buu yidhi Abu Qudaama waan ooyey buu yidhi wallaahi waxaan la yaabay cunugaasi wanaagiisa iyo siduu u quruxda badnaa iyo naxariistiisii hooyadii u naxariisanayo anigana waxaan u ooyey buu leeyahay raxmad aan hooyadii u naxay ayaan u ooyey sababtoo ah sanad ka hor waxay hooyadii weysay aabbihii wiilkan iyo walaalaheedii oo wiilka abtiyaal u ah ayay weysay maantana wiilkii bay weynaysaa arrintaa iyada ah ayaa muxuu ahaa argagax igu keentay maradaydii baan qabtay buu yidhi dhiiggii baan jirkiisa kaga tirtiray markaasuu wuxuu igu yidhi dharkaagii miyaad dhiigga iiga tiraysaa dharkayga ayaa wasakhda ku roon dharkayga dhiigga iiga tirtir dharkayga ayay ku habboon tahay dhiiggayga dharkayga iiga tirtir Abu Qudaama waxaa idhi buu yidhi waan ooyey buu yidhi jawaab aan siiye wiilka waan garan waaye markaasuu wuxuu igu yidhi adeer dhegayso ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddaan dhinto oo aad ku laabato tuuladii aad ka soo baxday riqa ahayd aad ku laabato ilaahay baan kugu dhaariyey hooyaday u bishaaray ilaahay baan kugu dhaariyey hooyaday u bishaaray adeer buu yidhi waxaad u sheegtaa hooyaday buu yidhi ilaahay inuu ka aqbalo hadiyaddii ay u soo dirtay wiilkeedana la dilay jidka ilaahay isagoo ku jira cadowga ka sii horjeeda cadowga aanan ka cararin la dilay ilaahay hadduu ii qoray inaan shahiid noqdana salaantaydii waxaan gaarsiinayaa aabbahay iyo abtiyaalkay jannada ku jiro ayaan hooye ka gaarsiinayaa u sheega hooyaday markaas wuxuu igu yidhi adeer waxaan ka baqayaa hooyo inaysan ku rumaysan haddaad tidhaahda wiilkaaga wuu dhintay inay ku rumaysan weyso ayaan hooyaday ka baqayaa hadalkaaga ma rumaysanayso ee maryahayga qayb ka mida inta aad jeexdo bac ku riddo hore u sii qaad oo jawaan yar ku sii duuduuba hore u sii qaad hooyaday hadday aragto dharkaasi dhiigga leh waxay rumaysanaysaa in anigana la idilay waxaadna u sheegtaa ballankanagi iyo meeshaan isku arkayno jannada inay tahay markaasuu haddana wuxuu yidhi adeer haddaad guriganagi tagto waxaad arkaysaa gabar yar oo aniga ila dhalato da'deeda 9 jir ay tahay wuxuu leeyahay guriga weli ma aanan gelin anoo bannaanka ka imid hadday aragto farxad iyo bishaaro ayay ku nooleed gurigana kama soo bixi jirin markaa bannaanka aadayo iyadoo ooyeynayso murugaysan baan ka soo tegi jiray hadda haddii ay maqasho sanadkii hore waxa ay ka naxday geeridii aabbahay ayay ka naxday haddana haddii walaalkaa wuu dhinto la yidhaahdo way ka naxaysaa ee gabadha ayada waxaad ku tidhaahdaa haddaad aragto dharka safarka inuu kaa muuqdo ay ku aragto waxaad tidhaahdaa walaalkaa wuu fiican yahay sababtoo ah markii igu dambaysay aniga aan ka soo tegayey anigoo labistay safar u socda ama dagaal u socda markay iga dareentay waxay igu tiri aboowe ha soo daahin soo dhaqso waan ku sugaynaa inoo soo degdeg bay igu tiri hadda laakiin haddaad la kulanta gabadhaasi qalbigeeda hadalla qurxiyo wanaagsan ku dheh ayuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa walaalkaa wuxuu ku yidhi ilaahay baa khaliif iga ah ilaahay baa walaal kuu noqonayo ku haynayo sidaa ku dheh wuxuu leeyahay wiilkii yaraa sakaraadkii baa soo fuulay naftii baa hamhamadii iyo dhuuntii soo istaagtay wuxuu leeyahay hadal buu igu yidhi iga yaabiyo dhabtaydii buu saaran yahay naftiina way ka sii baxaysaa wuxuu igu yidhi adeer wallaahi riyadii aan arkay waa run allaha kacbada sameeyey kacbada iskale ayaan ku dhaartay riyadii aan arkay wallaahi waa run gabadhii mardiyada ahayd ee aan ku arkay jannada waatan madaxayga agtiisa taagan udgoonka raa'ixada jirkeeda ka soo baxaysa ayaan urinayaa kadib wiilkii dhidid badan baa ka soo baxay sakaraadkii baa issoo daba istaagay naftii baana ka baxday Abu Qudaama wuxuu leeyahay dharkiisii qayb ka mida ayaan qaaday waan aasmay wuxuu leeyahay waxa iigu badan hamiga aniga niyadeyda ku jira waxay tahay magaalada riqa wiilka uu ku dhashay hooyadiina ay joogtay in aan tago hooyadii aan gaarsiiyo fariinta wiilka uu ii dhiibay intaa kaliya unbaa niyadeyda ku jirto riqa ayaan ku laabanay wuxuu leeyahay hooyadii magaceeda ma garanayo guriga meeluu ku yaallo ma garanayo habeen madow unbay ii timid wiilkana jidka unbuu naga raacay xilli aan waddada bartamaheeda socdo ayaan waxaan iska ag istaagay guri ay hortaagan tahay gabar yaroo aad u qurux badan qof walboo dharka safarka ay ka dareento waxay leedahay xeen jihaad baan ka nimid waxay leedahay walaalkay mid la socdaa waxay leeyihiin walaalka ayuu yahay maba garanay wayna iska tegayaan dad badan bay weydiisay jawaabtii ayar ahayd baa loogu celceliyey markii dambe aniga ayaa gabadhii dul istaagay oo hinbay la dhacday buu leeyahay gabadhii baan dul istaagay waxay leedahay dadka may ii jawaabaan dadka way soo laabteen walaalkay muxuu u soo laaban waayey ay ku celcelinaysaa markaasaa
dusheedii markaan soo istaagay dharkaygii ay aragtay safarna iga dareentay bay igu tiri adeer xageed ka timid waxaan ku iri jihaadka ayaan ka imid waxay igu tiri walaalkay midla socdaa waxaan ku iri aawo hooyada gudaha ay gashay hooyada ay u yeertay hooyadii markay banaanka soo baxday codkayga ay maqashay waxay tiri Abu Qudaamow ma waxaad iigu timid inaad ii tacsiyeyso mise inaad ii bishaaraysaad iigu timid waxaa iri sideen kugu tacsiyeeyaa ama kugu bishaareeyaa waxay igu tiri haddaad iigu timaado war ah wiilkayga in jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu dilay isagoo dagaal ku jiro cadowga fooda ku haya la dilay haddaad iigu timaado taasi waa bishaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala hadiyadeydii aan u gudbiyey 17 sano wiilka aan soo koriyey u hadiyey inuu iga aqbalay ayaan ogaanayaa haddaad i tiraahda wiilkaagii wuu soo nabad noqday ciidankii wuu ka soo guulaystay xoogaa qaniimana wuu soo qaatay haddaad igu tiraahdo ilaahay inuusan hadiyadeeda aqbalin adigana aad tacsiye ii wadda ayaan u garanayaa waxay leedahay marka hooye wuxuu yidhi ninkan waxaan ku iri wallaahi waxaan kuugu imid inaan kuu bishaareeyo ayaan kuugu imid wiilkaagii waa la dilay isagoo cadowga ku sii jeedo ayaa la dilay markaasay tiri kuma rumaysanayo waxa aad sheegayso inay run tahay ma moodayo markaasay waxay eegtay gacanteydii wixii aan ku hayay bay eegtay wixii baan u furay waxay aragtay dharkii wiilkeedii ayada ay ugu labistay quruxda badnaa oo dhiigga uu ka qulqulayo bac anigana aan jawaan ku wado ayay aragtay markaasay tiri Allahu akbar intay tiri bay faraxday gabadhii yareed laakiin wiilkii yaraa la dhalatay meeshiiba intay dhulka ku dhacday ayaa hooyadii gudaha kula carartay biyo ayay soo qaaday si ay ugu bilbisho gabadheedii bal si ay u soo nasato ama ay kaga soo kacdo suuxdinta ay gashay anigana meeshii baan fariistay gabadhii yareed baan quraan ku akhrinayaa wallaahi buu leeyahay intaan gabadha quraan ku akhrinayo hooyadana ay biyaha ku shubayso gabadhii nafsadda ayay seegtay oo waa ay geeriyootay tii yareedna hooyadii gabadhii meydkeedii bay qaadatay gudaha ayay la gashay albaabka ayay soo xiratay gurigii bannaankiisii baan istaagay wax aan sheega ma garanayo hooyadan musiibooyin badan baa ku habsaday codkeedii baa isoo gaaray anigoo gudaha ku jira waxay leedahay ilaahayow ninkaygii baan shahiidnimo kugu soo gudbiyey walaalahaygii baan shahiidnimo kugu soo gudbiyey wiilkaygii aniga aan dhalay shahiidnimo ayaan kugu soo gudbiyey ilaahow waxaan kaa codsanayaa kaa rajaynayaa inaad raalli iga noqoto aniga iyo ayagana aad jannada inagu kulmiso sida ay hooyadii ku ducaysatay anigana waan isaga soo tegay buu yidhi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قصدين إن شاء الله تعالى أنت أيكو أكتهي